kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada warka Gacal Show qodobada aan idinkugu haynana waxa kamid ah madaxweynihii hore ee Puntland oo maanta lagu aasay Garowe iyo madax uu kamid yahay gudoomiyaha aqalka sare oo ka qayb galay dawladda Soomaaliya oo gudi xaqiiqo raadina u diraysa baladweyne kadib burburkii diyaaradda Mareykanka oo war ka soo saaray shirkii diyaaradeed ee shalay ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne iyo baarlamaanka Soomaaliya oo dood adag ka yeeshay sharciga asxaabta siyaasadeed iyo gudoomiye mursal oo ku hor yimid shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Buusamareeb isku soo noqdo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada warkii oo intii hore ka faahfaahsan haddii aan ku bilowno magaalada Garowe ee gobolka Nugaal ayaa maanta waxaa gaaray qaar ka mid ah madaxweynayaasha dawlad goboleedyada oo ay ku jiraan hogaamiyaasha Galmudug iyo Jubbaland iyagoona halkaasi si weyn loogu soo dhaweeyay madaxdan ayaa ka ambabaxday magaalada Buusamareeb oo maalmihii ugu dambeeyay ay ku sugnaayeen waxaana Garowe ay uga qayb galeen aas qaran oo loo sameeyay Allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi Gaagaab kaasi oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaana meydkiisa diyaarad gaar ah oo saakay ka soo qaaday magaalada Nairobi ay geysay magaalada Garowe halkaasi oo isla maanta lagu aasay dhanka kale gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo wafdu hogaaminaya ayaa maanta tagay magaalada Garowe ee xarunta dawlad goboleedka Puntland iyagoona halkaasi ay si weyn ugu soo dhaweeyeen madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani iyo gudoonka golaha wakiilada maamulka Puntland waxaana wafdiga gudoomiyaha aqalka sare ay ka qayb galeen aaska qaran ee loo sameeyay madaxweynihii hore ee Puntland afayeenka madaxtooyada maamulka Puntland Jaamac Dabarani oo la hadlay warbaahinta ayaa waxaana wafdiga gudoomiyaha aqalka sare ay ka qayb galeen aaska qaran ee loo sameeyay madaxweynihii hore ee Puntland dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in gudi xaqiiqo raadina ay u dirayso magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan xilli ay shalay garoonka magaaladaasi ay diyaarad ku burburtay wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya ayaa hogaaminaya wafdigaasi oo baaritaan ku sameyn doona sababta ka dambeysay burburka diyaaraddaasi oo ahayd nooca xamuulka isla markaana siday gargaar bini'aadanimo wasiir Omar iyo wafdigiisa ayaa ka degi doona magaalada Baladweyne iyaga oo kulamo la qaadan doona mas'uuliyiinta gobolka Hiiraan iyo saraakiil ka tirsan ciidamada Djibouti ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM ee ku sugan Baladweyne gudigan ayaa waxa ay baaritaan qoto dheer ah ku sameyn doonaan sida ay u burburtay diyaaraddaasi iyo sababta rasmiga ah ee horseeday in diyaaraddu ay dhacdo oo dabka kaco wafdigan lagu sheegay xaqiiqo raadinta ee tagaya Baladweyne ayaa ku soo aadaya xilli ay soo baxayso in diyaaraddaasi burburkeeda uu sabab u ahaa dameerkaasi oo soo galay dhabaha diyaaraduhu ku ordaan maareeyaha guud ee diyaaraddaasi ayaa warbaahinta u sheegay in burburka diyaaraddu ay timid kadib markii si lama filaan ah uu dameer u soo galay dhabaha diyaaradaha xilli ay diyaaraddu soo cagadhiganaysay garoonka wararka la xiriira diyaaradii shalay ku burburtay magaalada Baladweyne ayaan daawadayaal ku guda jirnay dawladda Mareykanka ayaa war ka soo saartay shilkii diyaaradeed ee shalay ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada Baladweyne Maryama Cabdulla Xasan ayaa faahfaahinaysa qodobkan dawladda Mareykanka ayaa markii ugu horeysay ka hadashay diyaaradii shalay ku burburtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan Mareykanka ayaa nasiib daro ku tilmaamay burburka diyaaraddaasi iyo gargaarkii ay siday oo gabi ahaanba basbeelay maadaama uu dib xoogan ka kacay diyaaradda sida lagu sheegay war qoraal oo ka soo baxay safaaradda dawladda Mareykanka ee ku leedahay Soomaaliya qoraalka ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in si weyn ugu faraxsan yihiin in burburka diyaaradda uusan ka dhalan wax dhimasho ah safaaradda ayaa si kooban u sheegtay in gargaarka ay sida diyaaraddaasi uu lahaa mid ka mid ah dawladda Mareykanka ayna sii wadi doonaan taageerada dawladda federaalka ah iyo shacabka Soomaaliyeed sidoo kale waxay safaaraddu u mahad celisay mas'uuliyiinta sida degdega ah uga falceliya burburka diyaaraddaasi isla markaana samati bixiye shaqaalihii saarnaa burburka diyaaradda iyo macaawanadii ay sidee ku yimid inkastoo nasiib daro yahay haddana waxaan ku faraxsanahay in aysan jirin cid wax ku noqotay shilkaasi oo joogtay dhulka ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay safaaradda diyaaradda burburtay oo ahayd nooca xamuulka ah isla markaana ay lahayd Kenya ayaa waxa ay si gaar ah ugu kirisneed qaramada midoobay sida ay hore u sheegeen warbaahintu waxa dhammaan howlwadeennadii diyaaraddaasi lagu sheegay 3 ruux oo laga soo samati bixiyay iyadoo magaalada Muqdisho ay u soo qaaday diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ay leedahay qaramada midoobay waa mahadsantahay Maryama baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dood adag ka yeeshay sharciga asxaabta siyaasadda dhinaca kale gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa si adag ugu hor yimid shirkii Buusamareeb ay dhawaan qodobada ka soo saareen madaxweynayaasha dawlad goboleedyada oo uu martigeliyay madaxweynaha maamulka Galmudug Qorqor warkan waxaa faahfaahinaya wariyaheena Deeq Macalin Jiinow
xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta ku yeeshay Muqdisho kulankii 16aad ee kala fadhigii 7aad. Kulankan waxaa shir gudoominaya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo uu weliyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey. waxaana kulankan soo xaadirtay 142 mudane. ajendaha maanta ayaa waxa uu ahaa akhrinta labaad ee wax ka bedelka sharciga xisbiyada siyaasadeed ee dalka. gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ka horjeediyay qodobada qaar ee ka soo baxay shirkii madaxda dowlad goboleedyada dalka ay ku yeesheen magaalada Dhuusamareeb. waxa uu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya in madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira ay soo go'aan ka gaari karin nooca doorashada dalka ay noqon karto. xilliga doorashada dadban 2016 la aaday wadankan sharci doorasho ma lahayn. wadanka hadda wuxuu leeyahay sharci doorasho oo baarlamaanka ansixiyay madaxweynaha uu saxiixay. meel ay ku qoran tahay doorasho dadban in la aaday ma jirto. qodobka kale oo aan rabno in aan isxasuusino haykal dowladeed dhisan. baarlamaanka waa golihii sharci dejinta ama baarlamaanka waa sharci dejin. qodobka 47 ayaa xaq u siinaya marxaladda hadda la marayo inaan anaga dhamaystirno wixii shuruuca oo doorashada lagu aadi lahaa ee isteedya iskama laha. shaqo badan aan soo qabanay. shaqada hadda noo harsan waa tan hadda gacanta aan ku hayno oo ah wax ka bedelidda sharciga axsaabta siyaasadeed. hal qodob aan rabaa inaan ku daro. waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay leeyihiin degmooyinka iyo gobollada Soomaaliya lagama codayn karo. run aan idin sheegaa. maanta waxaan idin sheegayaa magaalada Muqdisho haddii la yidhaahdo shacabkeeda doorashaa dhacaysa xiise weynay u qabaan. doorashaa dhacaysa in la yidhaahdo tirada meel yacni dadka codaynaya waa lala yaabi doonaa. waxaan rabnaa marka maskaxda aan gelino dastuurkaas iyo sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka uu ansixiyey intaas kadib xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa guda galay ajandadii maanta laga doodayay. marka xildhibaanayaalow aniga gudoomiye ku-xigeenka hadda kaligiis eedayn maayee annaga oo dhan baa waxaa naga buuxa kaluundiyaal siyaasadeed. ma gartay horta iska dayna kaluundinimada. gudoomiyaha meesha uu ka hadlay meel adiga aad ka leedahay horay haddii gadaal lagu geeyo wax kaaga meesha foolxun ma jirto. وإن قفك بني آدم واحد إذا أصعب شيء للإنسان أن يعرف قيمة نفسه. نينك وحا أقول بدل إنه قرط قيمة دبن مديسة ما قلت يا ماشي لقات تبتيرك أهو أنا نجا ماشي لقات تبين التفك أهو ما قلت يا تف أنا قلها الشعب هدي حسانة ديسي شرف ديسي قدوم يوم adiga iyo gudoomiye ku-xigeenkaagii ee idinka soo yeertay in la ilaaliyo sharafta baarlamaanka oo idinka number 1 gudoomiye ay isku canaanateen anaga inaan xildhibaanada saaxiibadayna inaan iscanaanano waa dow. waxa meesha yaalana waa qaanuun iyo sharci maaha ishaafalataysi ee nin asaga xildhibaan ah nin kale inuu gadaashiisa istaago asiga ka protocol leeyahay waa dhibaato ma gartay. adoo 140 ayad taqaanid من قرآن الجبيها إمام أذكر قتيه وخلوه. والله الشعب وحين أنت عند سيسن وحواي قد كدر إن الضلهم بناي في سبعة وقعد الله الضلهم تحمي سما وحين أنت صار عم قدوم يا وحين صار حكتي باقة جمهورية قضبك هداف تيجي رسول قضبك فرقد السكوبات وصاق عطي قدوميها مثلاً dadweynaha oo loo dhan yahay
iyo nidaamka asxaabta inay ku dhisan tahay jamhuuriyaddan waxaan ku darayaa in aan kulligeen hoos u fiirino qodobada kale ee isla cutubkan sheegayo. أولا هم هالعلينا أصل كدي وشغلات في عاني سوق قبتين بلسة حراسات كان سلا وقوة قضاء كاس ديتني اللي حاد حراسات كا شرعي عنا وشرعي آد مهم واحد سو علنتا وردحين سهيد الشرعيات كا هير كلابات يقول بنت سو بنت كدية فقد كوات قراء شعب كوائنا لجور وين والجور قليا وحي سو جيلين وحكى بدليل guddiga ku dhaqaaqay hindis sharciyeed walba guddi soo gudbiyo waxa laga bedelo ama yaan laga bedelin waa in loo soo gudbiyaa golaha iyadoo ay la socoto warbixin qoraal ah waan loo soo gudbiyay waan la akhriyay. guud ahaan daawadayaal waxaa intaa ku dhan warkii M Gacal Show kulankeena kan xiga waxaan idin leenahay sida iyo nabadgelyo.